وعن oo wanaagsan daawadayaal maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay eeyaal magaalada ku soo baxsadaan daawo oo iska taxadar Lily waa inaan yar oo ku nool wadanka Hungary waxa ay haysataa ay lagu magacaabo Hagen Lily waalidkeedu waa ay kala tageen taasi oo keentay in ayga ay wehel ka dhigto muuqaalka waxaynu arkaynaa Lily oo ayga la ciyaarayso halka hooyadeed ay qorsheynayso inay Mareykanka aado taa beddelkeedana aabaheed ay la joogayso Daniel oo ah aabaha Lily waxa uu ka shaqeeyaa kawaanka waxa uu ku faraxsan yahay in inantiisa ay la noolaato waxa uu sidoo kale ka fajacay ayga ay wadato Danielna asaga ma jeclo eeyada markii uu guriga soo gaareen naagtii guriga lahayd waxay ku dhahday in aan lagu ogolaan eeyada laakiin Daniel waxa uu sheegay inuu ka takhalusi doono muddo yar gudaheed maadaama uu guriga yar yahay ayga waxa loo qaxeeyay dhankaas iyo suuliga aygi waxa uu bilaabay inuu ciyo taasoo ka hor istaagtay inay dadka seexdaan ugu dambeyn Lily ayaa u tagtay halkaas oo ay u dheeshay gitaarka aygina wuxuu bilaabay inuu isdejiyo subax xigay albaabka waxa soo gargaraacay nin xanaaqsan maadaama aygi xalay uu ka seexan waayay waxa uu ugu goodiyay inuu booliisku dacweyn doono maalintii xigtay Lily ayaa waxay qaxaysatay aygi waxayna aaday dhankaas iyo iskoolka muusigada aygina waxay ku qarisay meel sanduuq ah laakiin markii ay muusigada bilaabatay aygi ayaa soo baxay taasi oo ka xanaajisay macallinkii waxa uu nagu amray in ay ayga banaanka u saarto Lily iyo aygi ayaa ka soo baxay iskoolkii ayadoo soo socota waxa arkay aabaheed waxa uuna bilaabay in Lily iyo ayga uu kala saaro wax walbaba ha ku qaadatay Daniel ayaa banaanka u tuuray aygi waxa uuna gudaha si qasab ah ku geliyay inantiisa Lily baawurkii ayayna hore u wadaan aygina waa uu soo ceersaday laakiin nasiib xumo waa uu ka haray marka guriga la gaaray Lily ayaa waxa soo kacday sakhri dhacay habeenimo si ay u baadigoobto eegeeda Hagen laakiin aabaheed ayaa ka hor istaagay Hagen ayaa suuqii waxa ka soo kacay buundo hoosteed waxa uuna aaday dhankaas iyo kawaanka laakiin waxa ku qeeliyay laakiin waxa eriyay ninkii lahaa kawaanka taas oo keentay in Hagen uu ka soo baxsado Hagen waxa uu gaaray meel ay ku qubaysanayaan eeyo kale oo badan laakiin durbadiiba waxa uu yimid shaqaalaha xanaanada eeyada kuwaas oo xareynayo eeyada laakiin Hagen iyo saaxiibadiisu waxay ku guuleysteen in ay ka baxsadaan xaruntii ugu dambeyntiina waxa badbaadiyay nin wadada joogo habeenkii markii la gaaray ninkii Hagen badbaadiyay ayaa wuxuu ka iibsaday nin ka ganacsado eeyada subaxii xigay ganacsada lagu magacaabo Sabo ayaa wuxuu go'aansaday inuu iibsado eey si uu ka qayb qaato tartanka eeyada maalintii xigtay Sabo waxa uu siiyay eeygiisa cunno nafaqo leh si awood u yeesho tartanka Sabo ayaa wuxuu tababar u bilaabay eeygi asagoo la bilaabay inuu garaaco si uu u adkaado eeyga habeenkii xigay Hagen ayaa waxa la geeyay xarunta dagaalka ee eeyada sharcigana waa eeygi xoog bato inuu guuleysanayo halka dad kalena ay ku khamaartamayaan eeyga guuleysan doono laakiin nasiib wanaag Hagen ayaa guuleystay halka eeyga galana uu geeriyooday laakiin nasiib xumo waxa dhacday inuu nalkii damo Hagenna asagoo fursadaas ka faa'iideysanayo waa uu dhuntay subaxda xigay eeygi Hagen waxa uu dib u kula kulmay eeyadiisa kale ee saaxiibada ahaayeen laakiin nasiib xumo hay'adda xanaanada eeyada ayaa qaxaysay waxaana lagu xiray silagyo maalintii xigtay dad ayaa u yimaadeen si ay u qaataan eeyga dooqooda ah isla markaasna ay u xanaaneystaan Hagen ayadoo loo wado in lagu tuuro meel silig ah ayaa waxa uu weeraray ninkii waday waa uuna dilay waxaana dhacday inuu ka furo eeyadii kale ee siliga ku xanignaa waxa ayna bilaabeen inay baxsadaan ayagoo ku baxsaday dhankaas iyo magaalada eeyadii waxay bilaabeen inay weeraraan dadka wadooyinka marayaan taasi oo keentay in bandow ku soo rogo magaaladii Lily marka ay warkay maqashay baaskiil ayay qaadatay ayadoo baadigoobayso eegeedii Hagen durbadiiba waxa ay la kulantay kooxo eeyaal ah dhulka ayay ku dhacday laakiin nasiib wanaag ma aysan weerarin laakiin Hagen oo ah hogaamiyaha eeyada waa mid ku hogaaminayo dadkii dhaawac u geysteen waxa uuna aaday Sabo waa uuna weeraray halkaas oo uu ku dilay waxa ayna sidoo kale weerareen ninkii hilibla ahaa ee eriyay Hagen Lily waxa ay garwaaqsatay in aabaheed sidoo kale uu hadaf yahay maadaama uu dib u geystay eeygii Hagen ahaa durbadiiba Lily waxa ku soo dhawaaday eeygeedii Hagen ahaa laakiin waa uu xasuusan kari waayay maadaama uu dhibaato soo maray waxa uu u ciyay kooxdiisa durbadiiba Daniel ayaa wuxuu la yimid gas si uu kala eriyo eeyada inantiisana uu badbaadiyo laakiin saasi tahay waxba waa ay ka qaadi weysay laakiin Lily waxa ay bilowday in ay gitaarka u dheesho Hagen durbadiina waa uu soo xasuustay waa uuna isdajiyay sidoo kale kooxdiisana waa ay ku daba fayshay eeyadiina dhulka ayay ku dhabacdeen muuqaalkana meeshaas ayuu ku dhamaaday daawade